kulanti wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan waa tabin kale oo ku saabsan barnaamijka waa 29ka bisha November sanadka 2025 tabintan waxaan idinkugu hayaa kooxda Xisballah ayaa wacad ku martay in ay sameyn doonto weerar argoosi ah waxaana sidoo kale ay eedaysay qaar ka mid ah sirdoonada wadamada Carabta iyadoo tilmaantay in ay ka dambeeyaan howlo basaasid ah oo ay ku qaadeen qaybo ka mid ah xarumaha kooxdaasi ay degan tahay iyagoo xogtaasi la wadaaga dhinaca Israel sida ay hadalka u dhigeen warbixin ayaan idinkaga hayaa arrintaasi iyo waliba shakhsiga kooxda maanta ay geeridiisa la murugoonayso oo la tilmaamay in uu asal ahaan ka soo jeedo wadanka Iran warbixintaasi ayaan si gaar ah barnaamijkan ugu faaqidayaa haddii uu Rabbi saamaxo dalka Turkigana waxa uu noqday mid ka mid ah wadamada mucjisada ah ee soo saara hubka ugu ballaaran ee adduunka 7 bilyan oo dollar ayay ka faa'iideen sanadkii la soo dhaafay oo kaliya marka la sameeyo qiimeyn gaar ah daraasad ku saabsan kobaca dhaqaalaha Turkiga ka soo gala hubka ay dunida u dhoofiyaan ayaan idin la wadaagayaa maxaa ka jira in Soomaaliya ay qayb ka tahay wadamada hubkaasi la geeyo ee Turkiga lacagaha ballaaran uu ka helo warbixin ayaan barnaamijka ku daawan doontaan arrintaasi ku saabsan isla wararka kale aan idin hayo haddii aan sii eego khiyaarta ay nala socotay dowladda Jarmalka ayaa warbixin sii daysa oo ku saabsan haddii Ruushka uu soo weeraro wadamada NATO inay noqonayso barta isku xiraysa dagaalka iyo duulaanka ka dhana dowladda Moscow arrintan oo si weyn ay u lafagurayaan qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn ee adduunka haddaba Jarmalka ma waxa uu diyaar garoobay weerarka ka dhanka ah dalkaasi Turkiga maxayse tahay walaaca laga muujinayo dowladda uu hogaamiyo Vladimir Putin xilligan oo ay wadnaha farta ku hayaan qaybo ka mid ah wadamada reer galbeedka intaan barnaamijka joogno waxaan la faguri doonaa war ka soo baxay dowladda Syria iyagoo baaq la yaab la u dirtay wadamada islaamka iyo guud ahaanba dunida waxay ka ashtakoonayaan Israel kadib weerar maanta ka dhacay meel ku dhow caasimada Dimashq waxay leeyihiin haddii aan arrintan la iska soo gaarin tala faraha ayay ka baxaysaa ladda gobolka bariga dhexe maalin walba waxay yeelanaysaa weji cusub oo ku saabsan isbedelada dagaalka iyo waliba xaaladda isrogrogaysa marka lagu akhriyo dhinaca ammaanka iyo nabadgelyada gobolkaasi ciidamada Israel ayaa lagu soo waramayaa maanta inay duqeyme ka fuliyeen magaalo kaabiga ku haysa caasimada Dimashq ee wadanka Syria arrintaas ayaa waxa si weyn uga galgashay xukuumadda uu hogaamiyo Ahmed Sharac oo ah madaxweyne ku meel gaar ah oo gacan saar wanaagsan la leh dowladaha reer galbeedka iyo waliba dowladda Turkiga oo NATO ka tirsan haddaba wasiirka muraha dibadda Asad al-Shaybani ayaa war uu soo saaray waxa uu baaq ugu jeediyay wadamada dunida gaar ahaan kuwa dunida islaamka iyo Carabta sida ay qorayaan wakaaladaha wararka ee Carabta wasiirka arrimaha dibadda ee Syria ayaa maanta ugu baaqay qaramada midoobay dalalka Carabta iyo kuwa dunida islaamka in tallaabo degdeg ah laga qaado buu yiri weerarada isdaba joogga ah oo ay Israel ku qaadayso ama ka fulisay qaybo ka mid ah gudaha wadanka Syria bayaankan ayaa yimid kadib markii Syria ay cambaaraysay duqeyntii lagu qaaday tulada loo yaqaan Baytul Jin ee duleedka magaalada Dimashq taas oo uu ku tilmaamay weerar toos ah oo lagu bartilmaameedsaday dad shacab ah oo u baahan in la garab istaago Asad al-Shaybani ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa X ee Twitter-ka hore loo oran jiray ayaa weerarkaasi ku tilmaamay gardarro aan geed loogu soo gaban oo lagu weerarayo qarannimada iyo madaxbannaanida qarankaasi oo mudan in si weyn loo ilaaliyo isagoo sheegay in Israel si ula kacay u beegsatay dad aan waxba galabsan sida uu hadalkiisa ku yiri waxa uu ka digay in si socoshada duulaanada noocan ah ay halis ku yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka Shaybani waxa uu sidoo kale weeraradan joogtada ah ku tilmaamay ama ay dalbanayaan buu yiri jawaab adag oo caalamku uu ka bixiyo waxana uu ku eedeeyo beesha caalamka inay ka aamuseen faragelinta iyo dhiirigelinta Israel ee madaxbannaanida wadankaasi iyo si waditaanka falalka guracan wasiirka waxa uu ugu baaqay qaramada midoobe gaar ahaan golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa dalalka Carabta iyo kuwa islaamka in mas'uuliyadan ay gutaan
oo ay ka hortagaan buu yidhi weerarada joogtada ay Israa'iil ay ku hayaan waddankooda sida uu ku baaqaba goordhow. dowladda Jarmalka ayaa daboolka ka qaatay inay noqonayso mid ka mid ah wadamada ugu muhiimsan ee isku xiraya howlgallada istiraatiijiyadda ah ee looga jawaabayo weerar suuragal ah oo ka yimaada dalka Ruushka oo lagu qaado qaybo ka mid ah wadamada Yurub, taasi oo hadda walaac badan ay ka muujinayaan gaashaanbuurta NATO oo ay ku bohoobeen dalalka dhaca waqooyiga badda Atlantikada. waxa uu tilmaamay war gaar ah oo sira oo la helay in dowladda Jarmalka ay diyaarinayso guud ahaanba kaabayaashii fududeynayay in jawaab degdeg ah laga bixiyo haddii Yurub ay la kulanto weerar iyo dharbaaxa uga imaanaysa waddankaasi Ruushka. dowladda Jarmalka markii ugu horeysay waxay shaacisay qorshaha istiraatiijiyadeed ee difaaca dalkaasi ee loo yaqaano Operation Plan Germany, kaasoo noqonaya kadib markii muddo dheer baa layidhi qorshahaasi uu ahaa mid sira in iminka bannaanka la keenay. qorshahan ayaa muujiyay in Jarmalku uu noqon doono xarunta ugu weyn ee isku xirka difaaca NATO haddii uu dhaco dagaal toos ah oo ka dhana xulafada ka hor yimaada baa layidhi ama ka dhanka ah dhinacaasi Ruushka oo hadda qarka u saaran inay isku dhacaan wadamada NATO gaar ahaan kuwa Yurub. warbixintan waxa ay shaacisay in Jarmalka uu diyaar u yahay in uu noqdo marinka ugu muhiimsan ee laga dhaqaajinayo ciidanka NATO, gaadiidka iyo qalabkoodaba si hab degdeg ah loogu daabulo dalalka bariga Yurub haddii ay faragelintaasi iminka laga baqayo dhinaca Ruushku ay bannaanka timaado. tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo gobolka uu wajahayo xiisado sii kordhaya oo la xiriira dalka Ruushka, waxaana qorshuhu dib hoos ugu xariiqaya baa layidhi dowrka Jarmalka ee xilliga dagaalkii qaboobaa marka la fiiriyo xiisadan iyo warbixintan sirta ah isku soo aaday. qorshaha oo ka kooban 100 bog ayaa sidoo kale qeexaya sida ay dowladda, hay-adaha rayidka ah iyo ciidamada Jarmalku u wada shaqayn doonaan markii dagaalka gudaha loo galo, iyadoo la diyaarinayo dekedaha, wadiiqooyinka tareenada ama xadiidka, wadooyinka iyo kaabayaasha kale ee muhiimka u ah inay ciidamada gaashaanbuurta NATO ay isticmaalaan xilliga dagaalkaasi uu socon karayo. mas-uuliyiinta difaaca ee Jarmalka ayaa ku adkaysanaya in qorshahan muhiimka ah uu xaqiijinayo badbaadada dalka iyo ilaalinta xulafada NATO xilli ay sii xoogaysanayaan qataraha military iyo kuwa internetka ah ee ka imaanaya dhinacyada kala duwan ee Ruushku uu ugu horeeyo, sida ay tilmaamayaanba xogta warbixintan ay daboolka ka qaaday. iyadoo xiisada gobolka bariga dhexe ay sii kordhayso lagana baqayo in dagaal ballaaran uu gobolkaasi faraha la galo, haddana kooxda xisbiga ee dalka Lebanon ayaa ku waramaysa in ay samayn doonaan argoosi ka dhana ninkii sargaalka ahaa ee Fuad Shukur bedelay ee isna la qaarajiyay. ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda waddanka Iran ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa ragga birlabka ah ee kooxdaasi ka tirsanaa sida ay iminka qubaradu tilmaamayaan. ururka Xisballah ee Lebanon ayaa ku goodiyay in ay ka jawaabi doonaan weerarka cirka ah ee Israa'iil ay ku dishay sargaal sare oo kooxdaasi ka tirsan oo dabdabaawi lagu magacaabo, kaasi oo lagu beegsaday deegaanka koonfurta Beirut 23 November 2025 sida xogta diiwaangelinta geeridiisa lagu sheegay. inta lagu guda jiray xafladii tacsida uu xisbiga ku qabtay galabta oo Jimco ahayd magaalada Beirut, Naciim Qaasim oo ah xogayaha guud ee kooxda ayaa sheegay khudbad muuqaal ah oo la daweeyay in dalka ninkaasi uu yahay dambi cad iyo gardarro toos ah, isla markaana kooxdu ay xaq u leedahay in ay samayso aargudasho. isagoo ka hadlaya muuqaalka waxa uu yidhi waan ka jawaabi doonaa, laakiin innaga ayaan dooran doonaa waqtiga iyo goobta ku habboon ee jawaabahaasi la bixin karo, sida xogayaha kooxda uu ku dhawaaqay. kooxda xisbiga waxay sidoo kale bannaanka keentay in ay dhagrayaan sirdoon shisheeye oo qayb ka yihiin kuwa Carabta oo xogtan u tusinaya nidaamka Israa'iil sida ay doodooda u dhigeen. wuxuu intaa ku daray in khiyaano iyo wax isdabamarin lagu sameeyay ciidamadooda, isla markaana xogtooda lala wadaagay nidaamkaasi. waxa uu sidoo kale sheegay in dalal shisheeye iyo qaar ka mid ah
hay'adaha sirdoonka carabta ay door muuqda ku leeyihiin bixinta xogaha military ee lagu beegsado hogaamiyaasha kooxdaasi ee ugu sarreeyay. ninka la dilay ee dabdabaawi lagu magacaabo aabihii waxa uu ka soo jeedaa dalka Iiraan, halka hooyadii ay tahay waddanka Lubnaan. waxa uu dhashay sanadkii 1968 sida ay tilmaamayaanba wararka la helayo. waxa uu ku barbaaray degmada ku taalla koonfurta Lubnaan. dhalinyaradiisii ayuu ku biiray kooxdaasi, waxaana magaca saxaafadda uu soo galay ninkaasi markii uu ka badbaaday weerar ka dhacay sanadkii 2025 halka lagu magacaabo Quneitra oo dalka Syria ah. ila Lubnaani ah ayaa tilmaamaya in ninkaasi uu ahaa taliyaha ugu sarreeya ciidamadaasi oo bedelay Fuad Shukur oo ciidamada Israa'iil ay qaarajiyeen sanadkii aanu ka soo gudubnay. dilka ninkan ayaa daboolka ka qaadaya in kooxda lagu dhex jiro isla markaana ay wajahayso xaalad weyn oo hubanti la'aan amni ah, iyadoo weerarkiisa sidoo kale 5 qof oo kale ay ku geeriyoodeen markii la qaarajinayay 28 kalena ay ku dhaawacmeen sida uu warinayo telefishinka qaybta afka Carabiga ee Al Jazeera oo goordhow sheekada ninkan daboolka ka qaaday. ugu dambeyntiina dowladda Turkiga uu hogaamiye Recep Tayyip Erdogan ayaa kaalin wanaagsan ka soo gashay wadamada hubka caalamka iibiya, iyadoo la warinayo in dhaqaale gaaraya $7 bilyan ay ka helaan sanadkiiba, sida warbixin gaara oo la daabacay ay tilmaamayso. wakaaladda wararka Turkiga Anadolu News Agency ayaa sheegtay in warshadaha difaaca iyo kuwa sameeya diyaaradaha droniska ee waddanka Turkiga ay gaarayaan horumar weyn oo taariikhi ah, taas oo sare u qaadaysa qiimaha dhoofinta dalka sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo ay ugu wacan tahay baa la yiri qiimaha sare ee lagu kala iibsanayo badeecada difaaca waddanka Turkiga uu soo saaro. dhoofinta difaaca waddankaasi ayaa sanadihii la soo dhaafa ahayd $2.2 bilyan marka la eego miisaaniyadda waddanka Turkiga ee sanadkii 2020, waxaana haatan ay gaartay $7 bilyan Mareykanka marka lagu qiimeeyo inta u dhaxaysa 2020 ilaa 2024, taasoo muujinaysa kobaca muuqda ee dowladda Turkigu ay ka gaarayso qiimaha ee ciidamadeeda ama warshadaheedu ay soo saarayaan. marka la fiiriyo waxyaabaha kala duwan ee Turkiga ay soo saarayaan ayaa haatan noqonaysa mid soo jeedanaysa adduunka, waxaana dhaqaalaha ugu badan ay ka heshaa gaadiidka dabaabaadka iyo waliba diyaaradaha droniska ah oo waayadii ugu dambeysay ay ku dhaqaaqeen Turkiga. markii samaynta gantaalaha laga soo tago, waxyaabaha kale oo ay abuureen waxaa ka mid ah diyaarado dagaal, kuwa militariga lagu tababaro iyo maraakiib qaada gaadiidka isla markaana diyaaraduhu ay ka duulaan, kaas oo hadda ay gacanta ku hayaan warshadaha wax soo saarka waddanka Turkiga, taas oo muujinaysa waddankaasi in uu yahay mid sare u kacaya. kobaca iyo faafinta caalamiga ah oo warbaahinta adduunka ay indhaha ku hayaan ayaa sidoo kale Anadolu ay daboolka ka sii qaadaysa. warshada difaaca iyo duulista dalka Turkiga ayaa sii ballaarinaysa joogtayntooda suuqyada caalamiga ah, iyadoo 5 bilood ee ugu horeysay ee sanadkan ay dhoofisay $2.98 bilyan, taasi oo muujinaysa koror gaaraya 29% marka loo eego mid muddadii laga jooga sanadkii hore. sida ku cad warbixin uu soo saaray Maxadka Sipri ee Stockholm oo ku yaala dalka Sweden, Turkiga waxa uu haatan ku jiraa kaalinta 11aad ee dalalka ugu sarreeya dhoofinta hubka caalamiga ah. sidoo kale 5 shirkadood ee Turkiga ah ayaa sidoo kale ka soo baxay liiska shirkadaha 100 ah ee ugu horeeya ee difaaca militariga soo saara, sida ay baahisay Defense News Top 100, taasi oo sanadkii 2025 la sii baahiyay. qiyaastii $11 bilyan ayaa lagu iibinayaa hubkooda, waxaana haatan uu kordhay 28% sanadkan 2025 marka la eego sanadkii la soo dhaafay ee 2024. Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu tiriyaa hogaamiyaasha wax soo saarka waddanka Turkiga kor u qaaday
kadib markii uu la yimid siyaasad caalamka ka gadmi karaysa iyadoo wax soo saarka tiknoolajiyada waddankaasi iyo khubarada ka shaqaynaysana kor loo qaaday